ogeysiis maamulka dekedaha iyo goobaha cashuuraha ka caaganaya Djibouti waxay ku ogeysinaysaa dhammaan ganacsatada in goobta ganacsi ee Free Zone-ka Djibouti la furi doono 4 bisha 7 ee sanadkan maalmaha kulanka oo laga hadli doono laguna wadaagi doono dad cilmiyeed ku saabsan ganacsiga waxaana weerisa carwo caalami oo lagu soo bandhigi doono wax soo saarka warshadleyda wadanka Shiinaha iyo waliba kuwa qaaradda Afrika goobaha cashuuraha ka caaganaya Djibouti waxay ku fadhidaa baddan 48.2 kilomitir oo isku weera ilaa haatan waxa heshiiska galay oo soo degay 41 warshadood oo ah wadanka Shiinaha sidoo kale waxa salka dhigay wadanka Rwanda waxaana wajiga hore dhismaha ku baxday lacag dhan 350 milyan oo dollar haddaba faa'iidada kugu jirta goobta cashuuraha ka caaganaya Djibouti waxa kamid ah abuurasho saaxiibo cusub oo ganacsi isbarashada warshadleyda Shiinaha iyo kuwa qaaradda Afrika markaad goof la qabatid iyo galaan ku wacan ganacsigu gurgurtaay gadana lagu aastay gurihii u sareeyay guryaha ah baro gunta hoose la adkeeyay guudka rugta ganacsiga cashuuraha ka caagan ee wadanka Djibouti haddaba halumin chance-ka ee degdeg uga faa'iideyso adigoo kala soo xiriiraya ciwaanada iyo lambarada shaashada kaaga muuqda